السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب الإسلام يا أصحاب تقارير ملك استجوبتان سود وهذا ما توحدود ولا إن شاء الله بارت فور أي لغة تلقى لي إن بدنا أصحاب تعكعبتين سؤال وأدقين أما بعض الشيء سومجين مركب ما إن شاء الله وحين سعودي هرنيشن سؤال ذو إيسيا نقف السوق بوليستان إن شاء الله دع ونجهل يا وحي ومتستي الميدا كلا شرحات بدنا ما بعنا برنامجكم قف كستو بان شرحاتنا قيبتي هور إن شاء الله سو داون دونا الله السعودة يمكن أخذك وحسيت وسوي شرا ترتميك وهذا برنامجك إن شاء الله قول بالرجيني يا دمان تو ترتمياش هذا بدي سلام يا سيدو كلام خاصنا لا دمان أصحابتنا برنامج كسي شير كريسان أصحاب هذا جرسي وي نوكو بلا إن شاء الله سؤال شكوباد واحد شيء تمارين القيامة الضوما وحوه رأي لك حسابي وحوه رأي لك حسابي تمارين القيامة صلاة ما شاء الله بل هو تسعد سؤال شكوباد طلبات عندنا كل جد واحد شيء كم هو مدحويني لبعض سومالي لان مدحويني لبعض سومالي لان يا شكرا معي ما يزيد وياي أنا دي أكو جد بيا سؤال صدحات واحد شيء الصورة دي سوته هو هاي إنه صار إسلام عمر بن الخطاب صورتي سببته هو هاي إنه صار إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤال أنا كرن معي سؤال أنا ما يزيد وي waxaan ku gudbinayaa su'aasha ku xigta su'aashani waa su'aal gooba galiya ee marka mid ka mid ah dooranaysa way adaa ku bilaabo lixle waxa uu ahaa ee gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland b gudoomiyaha golaha wakiilada c wuxuu ahaa mujaahid ururkii SNM la soo dagaalamay d wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay Khaatimo State way lixle waxa uu ahaa ee gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland b gudoomiyaha golaha wakiilada c mujaahid ururka SNM la soo dagaalamay d u dambeysana waxay koodhanaysaa waa madaxweynihii ugu horeeyay Khaatimo State inta midna garan maayo ma isid kuna si mid ka mid ah kuna siibso way taasna nasiib weesha ku dhaafiyaa way aad u mahadsantahay haddii aan ku gudbiyo su'aasha u dambaysa waxaad sheegtaa gabadhii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu waxyooday gabadhii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu waxyooday Aasha aad u mahadsantahay ma haysid insha Allah barnaamijku sii socon doona qaybaha dambana guul baan ku rajeynayaa إن شاء الله أدوم أحسنت أدوم أحسنت هنا أصحابته كل سؤالنا حب دين سؤال دينية سؤالات سواء كل رنانتي سجاد بوجه السين بقول كيف بقول ولي بقول حين قد بدنا ترتمى الله بعد برنامجك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله ما قاعد يمسك تكتب أنا ما أيوة سكي يا سكي حاجات نقرأ سؤال لسه قال سؤال يا صاحب بربرة أي برنامج كسيف عم بدل ساعتها وتأدب ما ستاي يعني مكوب لا بيا سؤاله أيه سؤال شو هو الرئيس هيكورن إذا شيء هو الرئيس لقى حسابي الدوما ما نتقيمه شيء هو الرئيس لقى حسابي الدوما ما نتقيمه صلاة وياي سؤال لبعض يعني كوجد بنية واحد شيء سامد حويني لبعض جمهورية الصومال الآن ده ريالي مياه وين ده ريالي كاين كذا ما ستة ما تسعين سؤال لبعض سؤال صدحات بنتوس كوجد بنية سؤال صدحات وحي قرن نسا شيء صورة دي سوف تلاقوا اللي جايين صور إسلام عمر بن الخطاب مايس وي سؤال أفراد هو سؤال قبل لي وحي قرن نسا
lixle waxa uu ahaa A gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland, B gudoomiyaha golaha wakiilada, C mujaahid ururkii SNM la soo shaqeeyay, D oo ugu dambaysa waxay ka odhanaysaa madaxweynihii ugu horeeyay Khaatumo State. mujaahid la soo shaqeeyay SNM. mujaahid la soo shaqeeyay ururkii SNM. wayahay aad u mahadsantahay waad saxday su-aasha labaad waad saxday su-aasha u dambaysa waxay ka odhanaysaa waxaad sheegtaa gabadhii uu alla subxaanahu watacaala usoo waxyooday. khadiija bin khuwayda ayaan u malaynaya. khadiija bin khuwayda. aad u mahadsantahay ma haysa su-aasha su-aaluhu shan su-aalood bay ahayn saddex ka mid ah dad garato waad guulaysanaysaa laba ka mid ah dad garan weydina waad guuldaraysanaysaa sidaa darteed waxaad garatay laba su-aalood insha allah qaybo dambe barnaamijka guul baan ku rajaynaya. haye waraa. haye aad baa mahadsantahay. haye ninka maqan. asalaamu calaykum. calaykum salaam waraxma. walaal magacaaga meesha joogto. magacaygu waxa weeye caashe axmed waxaan joogaa sanaag. sanaag. way barnaamijkood la socotaa soo maa. toos maasha allah. way waan ku bilaabayaa su-aasha koobaad waxay ka odhanaysaa kun waa madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Somaliland. madaxweynihii labaad Somaliland ya ma haysid. su-aashaas ma hayso. way su-aasha labaad baan ku bilaabayaa. su-aasha labaad waxay ka odhanaysaa waxaad sheegtaa suuraddii sababta u ahayd inuu soo islaamo Cumar bin Khadaab. suuradii sababta inuu islaamo Cumar bin Khadaab waxay ahayd suuraddaas suuratu Daaha bay ahayd. suuratu Daaha. wayahay su-aasha saddexaad haddaan ku su-aasha waa su-aal gobogeliya marka afar waxa weeye afartaa mid ka mid a dooranaysaa A iyo B iyo C iyo D. way waxay ka odhanaysaa ya qaar mid dadweynaha la weydiinayn waaye may barnaamijku ka dibay barnaamijyada hore balwad waaye waxay ka odhanaysaa su-aasha waa su-aal gobogeliya lixle waxa uu ahaa A gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland, B gudoomiyaha golaha wakiilada, C mujaahid ururka SNM la soo dagaalamay, D oo dambaysana waxay ka odhanaysaa madaxweynihii ugu horeeyay Khaatumo State. su-aasha laakiin ma fahminayay igu soo raali bal waxay ka odhanaysaa su-aasha lixle wuxuu ahaa lixle wuxuu ahaa A gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland, B gudoomiyaha golaha wakiilada, C mujaahid ururka SNM la soo shaqeeyay la soo dagaalamay, D-na waxa ugu dambaysa waxay ka odhanaysaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Khaatumo State. mujaahid xagga SNM ka socda. calaykum salaam walaal. walaal magacaaga meesha joogto. walaal magacaygu waxa weeye Cumar Yusri. ya Cumar Yusri. way xaggaa joogta Cumar. walaal waxaan joogaa maxaa yeelay Laascaanood. Laascaanood. barnaamijkood la socotaa. iyo walaal. barnaamijkood la socotaa miya. si wanaagsan walaal si toos ah. way aad u mahadsantahay su-aalahan si toos ah kugu bilaabay insha allah. haysa. way su-aasha koobaad waxaad sheegtaa kun waa madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Somaliland. madaxweynihii labaad. madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Somaliland. Egaal. ya Egaal buuxa. kuma Egaal. cigaal. way cigaal maxamed xaaji ibraahim cigaal soo ma. أنا كوس حاسس أشياء أدو ما سنتهاي سؤال اللي بعد بنكون بلعب إن شاء الله سؤال اللي بعد حكونا نسا شيخ سورة دي سببته واحد إنه سوى إسلام عمر بن الخطاب سورة ده ما هي ويا السؤال صدحات بنكون قد بنية waxaad sheegtaa waxa ugu horeeya ee adoomaha laga xisaabayo maalinka yawmal qiyaamah shayga ugu horeeya laga xisaabayo salaada way aad u maasantahay laba su'aalood baad
garatay mid kamid ah waad garan weyday sida wax ku gaadhay laba su'aalood baa ku gaadhay su'aasha afraad haddii aan kuu gudbiyo su'aasha waa su'aal goobo geliya marka su'aasha waxaa ka odhanaysaa lixda waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland ma maqle waaye su'aasha waa su'aal goobo geliya waay marka A iyo B iyo C mid kamid ah dooranaysaa insha Allah waay su'aasha koowaad waxaa ka odhanaysaa waxaan leeyahay su'aasha waxaa ka odhanaysaa lixda waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland B gudoomiyaha golaha wakiilada C mujaahid la soo shaqeeyay ururka SNM su'aasha D waxay ka odhanaysaa ugu dambaysaa wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay Khaatuma State maxay dhahdaa mujaahid aan garanayaa ومجاهد وياي ومجاهد aad u maasantahay wad soo dhadhaweysay inkasta su'aasha si dhameystiran uga jawaabin waxa uu ahaa C oo ah mujaahid la soo shaqeeyay ururka SNM haddii aan gudbiyo su'aasha u dambeysay barnaamijka su'aasha u dambaysa waxay ka odhanaysaa waxa sheegtaa gabadhii Allah subhanahu wa ta'ala soo waxyooday Maryama ayaan maray Maryama aad u maasantahay ما تسحين سؤالنا لبس سؤال هذا كم يدل قرتي مركا ما تقولي سن إن شاء الله قيمة دم برنامج يقول بكورة شنية إن شاء الله على هذه الضمان إن شاء الله أيه هذا ما زنتين لما أنا أصحابت مركز تجوكتان سأل الله سعوتان برنامجك سيدو كلا أصحابت وحان لي إن شاء الله برنامجكم ما مد ما دونا إن شاء الله sidoo kale telefoon barkana laga soo wici doona insha Allah waxa soo dhigi doona shaashada halkan ka heli doonta waxa jira waqti u gaana ma time barnaamijkan duubno waxa jira asxaab badan oo marar kale u soo kool garanaya waxaan leeyahay asxaabta time-ka laftigiisa waa kan marka insha Allah halkaas nagala socon doontaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.